awraaqadii u qoray inaan ka baxayaan u sheegay kadibna sida email meerinayeen markii dambe waxay iska soo jareen shirkadda in way qasaartay maxay waxa ana ka baxayna malahan ana ka hadiisa anigu marna noo qabtin xadiiskii ay ka sheekaynayaan الله والله قفكت واحد يسبان وحن صورن شري سبحان الله الله لكن الاتحاد كان توغا waa ma diin wax kama yaqaanaas diinka muslimka kana xsan ana waraa anaga ka cabsi badan waraa anaga aakhire wax dambiyo badan malihinba داير على سوق dhahay nimankan oo diinta u dhow yaa aakhire dambi weyn loo qoraa aniga laakiin wax dambiye ma leeyni ilaahay amarkiisa badala daar cali oo maxkamadiisa ugu yaraan dhowr ruux ay isku furtay yaa wallahi billahi oo talaahay dhowr ruux horta daahir cali oo marhaantas dadka daahir cali aaminsan ayagay u taala horta shaqo aniga horta ku maliyay oo maxaa lahaayay aniga ma aaminsani inta meel la soo istaago oo run ahaantii mustaqbal uu ku baaba'o meeshii la isku furo la isku ijaafaysto waxyaalo bareefad loogu baahan yahay in meeshii la keeno horta aniga ma aaminsani aad taaganahay kow maalin walba horta waa fiiriyaa waa fahamta amrina wixii khaladaadka meesha ka socdo iyo wixii meesha ka dhacayo dhan waa fiiriyaa al ultimo kow aniga shakhsiyadeeda aniga itaalaha balse dad fara badan ayaa meesha ku soo lumo dad fara badan ayaa meesha ku dambiyaabo yaa taas oo ay tahay ay meeshii waxay u noqotay maxkamadii oo qiyaamaha oo kaleenta iyo miisaankii qiyaamaha oo wax walbaba lagu kala miisaamayay kii qalad la kii kaleenta ilaahay rabbi raxmaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa daba xulbi daacan karo qofka inuu qofkan been ka sheega adiga ma sheegi kartid adiga meesha waxaa taalo sharaftii karaamadii islaamnimada iyo diintii sharaftii karaamadii islaamnimadii halagu bahdilo ayaa meesha taalo marba haddii horta waxyaalo oo qaar oo lagu baahan yahay inay bareefad ku ahaadaan haddii marba meesha lagu sheegay wanaag ma jiro maalin dhexdaas waxaan arkayay oo meesha laisku furayo soo kaleente waan maqlayay dad baa ku jiraan oo iska dhigayaan wadaadi inay yihiin dadkaasna waa taqaaniin dhammaantiina waxaa la dhahaa cumar maxamed holanoo lala jooga aniga holanaan kula jooga adeer cumar maxamed sheekh cumri abuukar u yaqaanaan dadka labada cunuga soo ag miya oo ka sheekay diinta oo safar miya absolutely kuwaas waaye labadaas waaye laakiin aniga abubakar waxna ma dhex marin cumarka waxna dhex mareen cumarka iyo daahir cali kulmiye haddaad taqaano ingiriiska ku nool labadaas waxay hadda kahor waxay furteen shirkad oo waxa ku taalo turkiga oo la dhahay libis marka waxay dhaheen yaa wax nagu darsanayo wax waa nagula darsan karaa dar allah nagula aamin iyo waxaasitay dhahayeen marka aniga lacagan ku darsaday lacag dhan 10,000 aan ku darsaday waqtigaasna waxay ahayd 2021 ahayd bilowgiisa markaas contract yaa kala saxiixana oo ahayd inaa micnaha lacagtaaseeto aan ku darsado shirkadaas oo hadday xitaa even ay qasaarto shirkadaaseeto lafaheeda aan aniga leeyahay balse faa'iido aysan ii soo koreynin markaas kadib adiga ii sheeg waxay sameeyeen waxay dhaheen faa'iido kama soo bixin dhowr jeer imeermeeriye marka waxaan dhahday sas tahay waxaan u baahanahay lacagteedii in la ii soo celiyo marka waxay ugu dhaheen waa inaad sugtaa 6 bilood sida shuruucda iyo kontraktiga ay ku qoran tahay okay aan dhahay kontraktigii 6 bilood marka waxay dhaheen waraaqad noo soo dir email ahaan oo aad ku cadeynaysid inaad ka bixaysid hadhow sidaan oo qabsanin waayahayaan waraaqadii u qoray inaan ka baxayaan u sheegay kadibna sida email meerinayeen markii dambe waxay iska soo jareen shirkadda in way qasaartay maxay waxa ana ka baxayna malahan ana ka waana la dhacay lacag ka maqan meeqa way $10,000 iga maqan bangi ma ku bixisay waxaa ku diray xawaalada Galaxy Travelka ma haysa cadaynti waxa u dirtay Sheekh Cumar u diray turkiga markuu joogay ahayd nambarkiisa waa kuu soo diri karaa hadda ii soo diray marka hore lambarkii cadaynta hadda soo dir daarinta ugu Sheekh Cumar orta taleefanka ha qaba waayo ama ha inkiro
ganacsiga Soomaalida waxa ku dhacay xatooyo ku dhamaada laakiin lacag badan inay fuusho ma ahayn oo lagu shaqeeyo Soomaaliya 10 kun daahir bal maamada codka kuu soo duubtay Rashid bal ee kasra ee WhatsApp-ka ma horada aragtay mise wax ku cusubtahay aday kula hadlaysaa balshid waa kuu soo diray adeer numberka cadayntiina u diraysa dhalada habrar oo nimankan waa la hadlay Umar Tuug waa la hadlay hora oo la hadlay sawirkiisana ay soo dadka tusi dadku markay xadiisaan adigu marna qabteen xadiiskii ay ka sheekaynayaan horta sideedaba waxaa fiican in sharafta iyo karaamada in la iska qaadin ilaahay addoon walba addoommadiisa oo muslim wuxuu siiyey sharaf iyo karaamo ayuu siiyey walow bini aadamkan ayaga ay iskaraamo tiraan ay is sharaf tiraan ay ka raadinayaan sharaftooda iyo karaamadooda inay social media ay ku bahdilaan qaarkood bini aadamnimadii iyo insaannimadii ay ku bahdilaan social media horta waxaas wax faa'iido ma keenayaan nimanka ujeedin dad waxa waaye maanta ku nool dhul barakaysan ku nool waaye aniga ahaan hal maalin niyadeedii ma gelinin dadkan xooladooda u baahan mise dadkan xooladooda u dhacaan hal maalin niyadeedii horta aniga ma gelinin balse ka dhig berinkiis wixii waa laga dhacay daahir cali sow inaan ilaahay la barbar dhigan ma ahan laakiin daahir cali sow ma ahan ilaahay ma ahan ina adiga maxkamadiisa soo fuushid ka hadashid waxaana laga dhacay intaana laga dhacay daahir cali sow wuxuu kuu qaban kara ma laha ilaahay subxaanahu watacaala unbaa wuxuu kuu qaban karo waadee ilaahay qofka maanta ku dacweysid ilaahay ayaa si toos u bareer cad u bareeraya ilaahay xaqaaga kaaga soo dhicinaya ilaahay xaqaaga kaaga soo qaadaya laakiin maxkamadda daahir cali sow run ahaantii dad fara badan ee dhumise ayaan isleeyahay dadkeenan badi waxay isku dhiibeen barta social media barta TikTok wallaahi haddii sanadkan hadda soo socdo hadday baasha sidaan kusii socdo markii dambe waxaa imaanayo waxyaale aan la arkin ayaa imaan doono inkastoo saameyn fara badan iyo waxyaalo fara badan oo aakhir zamanka oo laga arko kulley waxaan idin leeyahay walaalaha qaaliga muuqaalkan subscribe like share iyo comment iyo saara waxaan ku kulmi doonaa tan iyo naftiistii muuqaal ayaan ku kulmi doonaa waxaan idin leeyahay sida